dugsiga sare ee degmada Boqolmaayo ee gobolka Liibaan oo kamid ah dugsiyada ugu tayada sareeya dugsiyada waxbarasho ee degmooyinka deegaanka dhigtaana dugsigan in ka badan 1,187 arday oo aan booqanay si aan wax uga ogaano geedi socodka nidaamka barisbarasho ee dugsigaasi ayaa waxa si habsami leh uga socday dadaalo dhinaca barisbarashada kana mid yihiin u diyaar garowga barashada kombiyuutarka imtixaanka ku imaan doona sida tooska ah ee kombiyuutarka si ay fahan buuxa uga helaan kombiyuutarka imtixaanka soo waxaana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ardaydii dugsigaasi mar ay ku mashquulsanaayeen barashada cashirada waxbarashada si wanaagsan aan u qaadanaa ma garatay macallimiintan si wanaagsan ay noo siiyaan xiisadna nagama baaqata kombiyuutarkana waan baranaa macallimiintana uu wanaagsan ardaydan si wanaagsan ay wax bartaan si wanaagsan aan u diyaar garoonay sababtoo waxbarashada in muddo ay naga xilnaad hadda markii nala furina si wanaagsan baa la soconaa si wanaagsan baan wax baranaynaa waqtigan si wanaagsan noogu socdaa nidaamka barasho wallahi waa wax fiican si fiican waxaan barnaa taydayn waxbarashada way fiican tahay marka wallahi hadda abasho sheeganayna malahan sababtoo waa noo dhimaystireen macallimiintii wax walba waxaan haysan malaha hadda u jeedin kombiyuutarada wax walba oo haysan teknoolajiyad wax walba waxaan la'aanahay malaha oo ku mahadsan yihiin dawladda intaasi kadib waxaan waraysi kula yeelanay xafiiskiisa madaxa xafiiska waxbarashada degmada Boqolmaayo mudane aadan cabdullaahi cabdille oo kamid ah xubnihii maamulka degmada Boqolmaayo ee nagu weheliyay booqashada dugsigaasi isagoo oo nooga warbixiyay geedi socodka barisbarasho ee guud ahaanba degmadaasi Boqolmaayo haddaan ka warbixiyo geedi socodka barisbarasho ee 2013 sanad dugsiyeedka degmada Boqolmaayo si wanaagsan buu noogu qabsoomay degmada dhammaan 12 qabale iyo dhammaan dugsiyada ka jira degmada abaabulka waxbarashada si fiican buu noogu qabsoomay dib u soo celinta ardayda lafteeda 95% waan ku guuleysanay maxaan ku dhahaa tirada dugsiyada ee degmada ka jiro 4 dugsi sare ay degmada leedahay Boqolmaayo High School Malkaadida High School Koobe High School iyo maxaan ku dhahaa dugsiga sare ee Sadey haddaan ka warbixiyo dugsiyada formalka ah waa 10 tiradooda guud dugsiyada AB'da ah waa 22 dugsiyada sarena waa 4 san hore u soo sheegay wadarta guud ee dugsiyada degmada Boqolmaayo oo xafiiska waxbarashada gacanta ku hayo waa 35 dugsi anaga ka xafiis waxbarashahan agabkii waxbarashada haday tahay face maskigi haday tahay manhajkii haday tahay maxaan ku dhahaa tamaashiirtii haday tahay uniformigii la siinayay ardayda agoomaha ah si toos baan dugsiyada u gaarsiinay dhanka gudiyada degmada waxaa ka dhisan gudiyada technical committee ee heer degmo ku saabsan abaabulka waxbarashada iyo waxbarashada sidii looga dhaadhicin lahaa dugsiyada iyo maxaan ku dhahaa iyo qabaleeyada gudiga waa gudi aad u muhiim u ah heer degmana uu ka dhisan yahay ilaa heer dugsina waan u dhaadhicinay ayadoo abaabulka waxbarashadan uu si fiican looga qayb qaatay guud ahaan degmada sidoo kale madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Boqolmaayo oo hadalkiisa sii wata ayaa noo sheegay in gaar ahaan dugsiga sare ee degmada Boqolmaayo loo qalabeeyay sidii loogu talagalay haddaan geedi socodkeennii aan saaki ku tagnay kormeerka ama indhaynta dugsiga sare ee Boqolmaayo dugsiga sare ee Boqolmaayo waxaa ka faa'iideysta tirada ardayda ee wax ka barata dugsiga waa 1,187 arday ayadoo access-ka waxbarashada si fiican waxa qabtay dugsiga sare ee indhaynta ku soo sameynay agabkii waxbarashada uu dhameystiran yahay haday tahay macallimiintii haday tahay manhajkii oo casri ah oo lagu shubay maxaan ku dhahaa desktopyada dugsiyada yaali ee aan soo kormeernay dugsiga waxaa ka jira kalaabyo kala gedisan haday tahay kalaabka sportiga haday tahay science and technology kalaabka haday tahay environmental and energy kalaabka haday tahay wash kalaabka haday tahay library kalaabka language and media club ayaa ka jira Jilaani Cabdi Nuur warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida degmada Boqolmaayo ee gobolka Liibaan